cabdullaahi bnu rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyaysaa markaa bay tidhi dee adoo ooyey unbaan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduhaa kaana calىa rabbika xatman maqdiya ثuma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya anu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi ثuma intaa ka dibna nunaji aladiina اtaqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonnaa wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu ku jifaa innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur'aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeennu xisaabinaynaa oon meheraddeenni ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiinna markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi illaah allaahuma jannibna ashayطaan allaahuma jannibna ashayطaan wajannib ashayطaana maa rasaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan bisinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taas ay kala caddayn buu yidhi